ismariwaaga ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo cakirnaanta xaaladda guud ee dalku wali waa mid halkeedii taagan waxaana dhinacyada kala duwan ee ku kala aragtida duwan siyaasadda Soomaaliya midiba wali midka kale uu ku eedeynaya inuu yahay sababta xilligan ay wax ka qabsoomi laayeen gudooyinkii ugu dambeeyay kulamo ka dhacay Muqdisho ay yeelanayeen qaar ka tirsan xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay si adag kaga soo horjeedeen in muddo kordhin loo sameeyo dawladda waqtigeedu uu idlaaday qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo telefishinka CBA TV la dhex qaaday muuqaal baahiyihiisa ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay in xilligan ay macquul noqon karto in muddo kordhin loo sameeyo dawladda waxaana qaar ka mid ah hadalladoodii qayb ka ahaa maya muddo kordhin oo dawladda isaga sameeyo af ma aha waa in uu jiraa reason lagu kordhinayo haddii ay dawladdu qabto inay samayso one man one vote oo ay waxaan dadbano odayaasha lacag kala qaadanayaan laga tagayo oo shacabka loo celinayo awoodda waa ogolahay in maaragtay ay shaqadaas saas ku qabsato oo doorasho dalka ay ku dhici lahayd diiday marka waxa waajib ah oo xaq u leh baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ee golaha shacabka Soomaaliyeed matalaya in ay dawladda haatan jirta muddo kordhin loo sameeyo waxaana u horseeday diidmadii Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam kulanka Muqdisho kaga socda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir iyo madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed ay hor istaageen ayna diideen dawladda hadda jirto oo hogaaminaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in loo kordhiyo muddada 2 sanadood waxba kama qabo aniga kulli aragtidayda iyo ururdeeda anoo odayaashii dhaqanka digil imirfle ee koonfur galbeed aniga in loo kordhiyo 2 sanadood loo kordhiyo waxba kama qabo duruufaha hadda socda darteed in loo kordhiyo 2 sano waxba kama qabno aniga raalli baan ku nahay insha Allah taala biidnillaahi kariim si loo badbaadiyo qaranka iyo sharafta iyo karaamada Soomaaliyeed 2 sano in loo kordhiyo ayaan rabnaa insha Allah wallahi waxaan dhiiraa harto dadka xilka raadinaya kursi waa dhibaato intaan kursi u ordin shacabkiina fiiriya anaga shacabkeena ana matashin anaga qulubteena waxa ka kordhisa maanta waa in muddo kordhin la sameeyo xukuumadda la sameeyo ay xataa doorasho iska daa dadbanay heer cod iyo qof cod gaarsiinaa jeclaa lahayn marka aad u soo dhaweynaa waxaan leeyahay sajiya dada noo shaqeynaya ayaga ka dambeeya mucaad ba ahada ma xuma laakiin waa wixii dadku ay taageersan yihiin ina ka soo jeerteen far muuqata iska dhigteen waa laga fiican yahay ilaa aanti aad iyo aad si fiican in muddo kordhin la siiyo 2 sano waa soo dhaweynaa matalaad aad u fiican waay baarlamaankan waan ka rajaynaynaa insha Allah in mowqifkiisa ay qaataan waxa loo yiri qabiyo qofkeeda dhameystira marka dawladda hadda jirto wax badan oo u dhiman inay dhameystirto saas baan u dhahay insha Allah inay sameeyaan aad iyo aad si kastaba ha ahaatee wali waxaan go'aan rasmi ah laga gaadhin waqtiga ay noqon doonto doorashada ka dhacaysa Soomaaliya nooca ay noqon doonto iyo sida ugu macquulsan ee ay ku dhici karto idaaros magane wararka laanta afka Soomaaliga ah telefishinka CBA TV magaalada Muqdisho hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom